بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeeni imtixaanaha ee dacwat اlxaq dacwat liliimaani biاllah wacbud اllaha maa lakum min ilaahin gayruhu waxaa ilaahayna waafajiyey subxaanaه watacaala imtixaanaheena inaan aada uga soo hadlaynay iimaanka xaqa ee loo baahan yahay in la rumeeyo allah subxaanaه watacaala iyo xaqiiqada towxiidka qur'aanku siduu u soo bandhigay marka macnihii anagoo sii soconno ayaa qur'aanka ilaahay cajaa'ibtiisa waxaa ka mid a in dadka uu u sheegayo maanta haddii ay ku ina daraandarsan yihiin muuqaallo kaleeto waxaa imaan doonta maalin yacni maxaan ku ihahdaa daaha la iska rogi doono bini aadamka waxa le intuu adduunyada ku nool yahay wax hurdo oo kale weeye laakiin markuu dhintaa waagu u baryayaa wax xaqiiqo badan u arki doonaa macnaha qur-aanku taama ayan dhaafin nafteeda inuu naga tusiyo geerida dabadeed iyo xisaabta aakhiro iyo miisaankii la fooli doono sida uu allah subxaanaه watacaala uga soo dhex muuqan doono halkaasi inuu keligii ilaah yahay inuu keligii boqorka yahay inuu keligii yahay kan talada gacanta ku haya subxaanahu caza wajal dadkuna ay tahay yani inay ilaahay subxaanaه watacaala ay gartaan marka insha allahu tacaala markaan aayaadkaasi eegno oo ilaahay subxaanaه watacaala siduu aakhiro uga sheekeeyey oo nooga dhex tusiyey sida adduunyada u haysto aakhira inuu gacanta uga hayo shucuurka aayadahaasi tilmaamayaan aad iyo aad ayay runtii u yihiin inaan ka hor dhacno ma ahee laakiin waa macaani noo wada tilmaamahaya cabsi iyo haybad iyo runtii muxuu ahaa inaan dareenno ma arkaysaa yani ilaahay subxaanaه watacaala jalaalkiisa iyo cadamadiisa sidoo kalena ma arkay raxmadda ilaahay iyo cadamadiisa iyo quruxda allah subxaanaه watacaala u leeyahay maamulkiisa taa oo markaana gelisa marka inaan rajayno oo aan jeclaano aadna isugu hadlayna allah subxaanaه caza wajal waxba aana sii hordhicin aan nagu fogaanin aayadaha ilaahay baa nagu filan oo ay noo akrin doonaan walaalahay doctor cusmaan doctor cabdiraxmaan alustaad sheekh maxamed cabdinajiib alustaad sheekh cabdirashiid sheekh maxamed markaan jecla doctor cusmaan bal inuu noo bilaabo inaan aayadaha ilaahay runtii qiyaamahana tusinahayo awoodda ilahan ka dhex arkayna macnaha ad wax nooga sheegta insha allah bismi illaahi الraxmaan الraxiim allah wuxuu nagu leeyahay kitaabkiisa suuraة اlancaam acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim wa huwa alqaahiru fowqa cibaadih wayursilu calaykum xafada xatىa إida jaaءa axadakum اlmowtu tawafathu rusuluna wahum laa yufariduun ثuma ruduu ilى اllahi mowlaahum اlxaq alaa lahu اlxukmu wa huwa asracu اlxaasibiin allah subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu nooga muujinayaa labadan aayadood oo aan akhrinaynay awal manaasil alaakhira meesha ugu horeysa oo qofka uu ka bilaabayo caalamkan isagoo ka guuraya oo caalamka aakharada u guurayo ka hor alla wuxuu ka hormariyey subxaanahu wa tacaala adduunkan intii la joogayba alla inuu ahaa alqaahiru fowqa cibaadih midka addoommadiisa oo dhan maamulkiisa uu ku dul taagan yahay asaga ilaalinaya asaga hogaaminaya haba yaraatee gacan ay fidi karaan iyo il ay meel ku fiiri karaan aysan jirin iyo dhaqaaq iyo cod ay samay karaan aysan jirin alla inuu u idmo maahee marka horeba adduunka inta la joogay sidaas ayuu alla noo maamulayey oo qahrigiisa uu noo dul saarnaa dad addoommo ah oo khuduucsan oo aan tabar lahayn masaakiin ah oo amarka alla uu ku dul fulaya adduunka intaan joognayba aan ahayn adduunkii sidaa haddii lagu ahaa haddee aakhare markii la gaarane waxa weeye waxaa imaanaysa maamulkaas alla oo si fiican u muuqanayo waxayba ka bilaabanaysaaba allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi wayursilu calaykum xafada adduunkan intii la joogay alla isagoo saas ku ilaalinaya haddana wuxuu u xil saartay malaa'ig qof waliba la socota
oo wax alla waxa uu afka kaga hadlaya ama ficil uu samaynayo kulligood meel buug ugu qoraya. xafada baaba la yidhi kuwa xifdiya oo haba yaraatee qofka dhaqdhaqaaqiisa iyo waxa uu ku fikiraya iyo wuxuu ku hadlaya iyo wuxuu ku dhaqaaqaya si fiican u xifdinaya. adigoo saa wax alla wixii maalintaad qaangaartay ilaa maalinta nafta ay kaa bixayso wax alla wixii aad ku hadashay ama aad ku dhaqaaqday lagu xisaabay oo malaa'ig xafado ah ay saa kugu xifdinaysay buug kugu qoraysay ayaa waxa imaanaya maalin maalmaha ka mid a malaa'igtii qaar ka mid ahoo ayagana loo soo dirsaday inay nafka kaa qaadaan. xataa idaa jaaءa axadakum اlmowtu tawafathu rusulunaa wahum laa yufariduun. rusul alla xaggiisa ka socota imaanaysa lagaala tashamaya maalintaas goormay noqonay adiga hadda qeyb ay kaa tahay ma taqaanid ma maantay malig mowt kuu imaan doona nafta kaa qaadi doonaa ma beriba ma sanadka soo socdaa. caalam waxaad khatar ah waxaad iskaga dhex jirtaa iska shabkaxsanaysaa saacadda lagu imaana aadan ogeyn. alla wuxuu ku magacaabay malaa'igtiisaas marka ay qofkii u imaanayso nafta ka qaadayso wahum laa yufariduun. haba yaraatee gaboodfal samaymaan daqiiqad kuugu darimayaan daqiiqadii lagugu talagalay naftaa lagaa qaadaya. haddii meeshaas miyay arrinta ku dhammaatay ثuma ruduu ilى اllaahi mowlaahum اlxaq. int qofkii naftii markay ka baxdo haddii rabbigiisii buu u noqonayaa mowlaahum اlxaq. allaha mowlaha u ah weliga u ah arrimihiisoo dhan tawaliya gacanta ku haaya adduunkaba saas buu ku ahaa. laakiin waxaa laga yaabaa adduunka dadka inay ilowsan yihiin oy xor isu maleeyaan dad iska dhaqdhaqaaqaya oo alla habka inuu weli ayna ka dhigano kuwo kaloo ay wax ka rajeeyaan ama nacfi ka raadiyaan ama ay qadariyaan ama amarkooda ay qaataan inay adduunka jiraanaa dhici karta. laakiin waxaasoo dhan maalintaa meel cidlo ah bay ku kala yaacayaan. waxaa la yidhi mowlaahum اlxaq, mowlahoodii dhabta ahaa ayaa loo celiyey. haddii alla markii laguu celiyo maxaa ku xigo wahuwa alaa lahu اlxukmu wahuwa asracu اlxaasimiin. haddii allahaas waxaad ugu tegaysaa waxa weeye inuu ku xisaabayo oo weliba asracu اlxaasimiin uu yahay oo khalaa'iqdaa faraha badanna qof kale xisaabtiisa ay ka dib dhigaysa aysan jirin. allahaas ayaa ku xisaabaya. haddii maxaa alaa lahu اlxukmu wahuwa asracu اlxaasim. maalintaas xukumka allah iskale. adduunka intii la joogayba xukumka allah lahaa, laakiin dad badan baan dareensaneen xukumka hadda inuu adduunyada alla leeyahay. laakiin maalintaas si cad bay usoo baxaysaa. haddaba marka waxa muhiimka ah waxa weye dersiga tarbiyadeed oo arintan ay qofka mu'minka inay ku dhalisa la rabo waxa weeye adduunka intuu joogo in allaha la yidhi saas buu kontaroolkiisa kuu dul taagan yahay. haddana malaa'ig buu kuu dirsaday oo ku xifdinayso kula socoto inuu xishoodo allahaas ka cabsado wax alla wuxuu raalli ka yahay ma sameeyo wuxuu allahaas uga caroonaa iska ilaaliyo. taa meel bay ahayd. waxa arintaas aad iyo aad muhim uga sii ah alla aakhara waxaa la yidhi alaa lahu اlxukmu wahuwa asracu اlxaasibiin. kan xaakimka maxkamadda aakharada qaadaya oo xukumka ridaya oo weliba xukumkiisa uu degdeg yahay waa alla. haddaba waxaa isweydiin leh waxa aakhara markaa tagto lagugu xukumaya waa adduunkan wixii samaysay waa. haddaba adduunkan markii aad joogtay waxaa lagaa rabaa waxa biri lagugu xukumi doono kiisaska lagugu qaadi doono alla waaye waxa qaadaya. adduunkanna wuxuu u soo degsaday nidaam ugu talagalay addoommadiisa inay ku socdaan. nidaamkaas sharci iyo qawaaniin iyo diin uu ilaahay akhlaaq dhaqan dhinac kasta dhammaystiran ilaahay diintiisa iyo shareicadiisa islaamka waa oo u soo degsaday. waxa lagu xisaabana beri waa untaa qofkii adduunkii intuu joogay shareicadii ilaahay iyo nidaamkii ilaahay uu u degsaday iyo qawaaniintii uu degsaday sideeda u fuline hadda wuxuu sugaaba waa xukumkaa alla maalinta uu qaadaya in wixiisii o dhan okay loo saaro uu najaxo. qofkii aan sharcigaa raacin, shareecada ilaahay raacin, nidaamka ilaahay raacin, qaanuunka ilaahay u raacin aan raacin, haddee waxa u yaala qof adduunkii intuu joogay alla ka furtay, xukumkiisi diiday, sharcigiisi diiday, nidaamkiisi diiday, aan ku dhaqmin.
maxaa u yaalla markaa? bismi illaahi raxmaan raxiim. waxaan ku dari lahaa allah subxaanahu wa tacaala waxau noo sheegayaa alle oo waxyaalaha gaarka u lahaa oo ay ka mid tahay inuu mudabbir yahay oo nolosha bini aadamka isagoo tadbiirinayo, sharaa'icdiisa iyo axkaamta uu ku soo dejiyey waxyiga oo u waxyooday ambiyadiisa, gaar ahaan nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam, in uu maaragtay waxa weeye ku xukumayo, ku maamulayo. haddii lagu qabsado oo qolo kale ku qabsato, tashriicaad degsadaan, ama la yidhaahdo wuxuu leeyahay shariik oo alla la wadaaga waxyaalaha gaarka u leeyahay, ka mid tahay tashriica, sharci dejin ay ka mid tahay, inay tahay shirki, inay tahay kufri, inay tahay dulmi kii ugu weynaayo alla laga galay subxaanahu wa tacaala. alla wuxuu leeyahay acuudu billaahi min ashaydaani اrajiim waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatih inahu laa yuflixu الظaalimuun ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay aayadahaas noogu khabrayaa dulmi alla laga galo ama wujuudkan ka dhaca inuusan jirin oo ka weyn alla subxaanahu wa tacaala oo lagu been abuurto. see alla loogu been abuuranayaa? alla wuxuu yidhi shariig iima sugnaanin aniga, shariig igula ah khalqiga, sifaadka aan leeyahay, tadbiirka, yacni risqiga, mulkiga, shariig igula ah ma jiro baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala. niman baa soo baxay oo waxay yidhaahdeen maya shariig buu leeyahay, markaasi waxay la wadaajiyeen wixii alla subxaanahu wa tacaala keliga u iska lahaa, oo ay ka mid tahay taqdiiskii in la weyneeyo alla subxaanahu wa tacaala oo la qadiso, in cibaadadii iyo shacaa'irtii iyo uu iska lahaa keliga uu iska lahaa oo addoomaha maaragtay xaqa uu ku leeyahay ahayd in loola wadaajiyo asaga cid aan ahayn, in daacadii iyo hoggaansankii iyo khuduucii alla subxaanahu wa tacaala keliga uu iska lahaa oo lagu hoggaansamayay tashriiciisa iyo axkaamtiisa lagu hoggaansamayey, in la yidhaahdo qolo kalaa jirta oo mudan tashriic inay dejiso oo loo hoggaansamo oo loo khuduuco, in la yidhaahdo kullu daalika intaasoo dhan waxaa weeye waa been abuur, waa iftiraa alla subxaanahu wa tacaala lagu iftiroonayo oo laleeyahay shariig ayaa jira la wadaaga sifaadkaas alla leeyahay subxaanahu wa tacaala. alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dadka saas samaynaya yaa ka dulmi badan, dadka aayaadka ilaahay beeninaya yaa ka dulmi badan. saasuu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala, yacni waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba aw kadaba biaayaatihi inahu laa yuflixu الظaalimuun. dadka daalimiinta dulmiga meeshan waxaa loo jeedaa ka dulmigii kufriga ahaa ayaa loo jeedaa, sababtoo ah shirkigu ina ashirka la dulmun cadiimun. alla yidhi subxaanahu wa tacaala in alla loo sameeyo shurakana dee waa shirkigii waaye. dadkaas maaragtay waxaa weeye dhaalimiinu ma aflaxaan, adduun kuma aflaxaan, aakhara kuma aflaxaan, itijaah kuma aflaxaan, yacni arrima kuma aflaxaan, sidoodaba ma aflaxaan, ma liibaanaan. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadkaasi oo soo dhintay
oo aayadihii doctoorku noo soo akrinayay markay u yimaadeen rususha yani oofsan lahayd soo oofsatay oo ay timid aakhare ay yimaadeen, dadkaasi markii lasoo maxsharkii la isugu keeno xaaladoodu say ahaanaysaa. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kuwii shurakada ahaa oo aniga aad iila wadaajiseen wixii aan gaarka u lahaa oo cid ilaala aysan jirin aawe oo aad sheegan jirteenoo aad dhihi jirteen yani waxay mudan yihiin in la qadiso la weyneeyo, waxay mudan yihiin in daaco iyo cibaado iyo la siiyo, waxay mudan yihiin inay waxdejiyaan oo shuruucdooda la qaato oo loo hogaansamo ayay mudan yihiin aada lahaydeen aawe xaggee bay jiraan. yani saasa alla subxaanahu watacaala leeyahay. intaas markii su-aashaas jawaab uma hayaan. huma lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallaahi rabbina maa kunna mushrikiina, inay inkiraan oo ay dhaartaan oo ay yidhaahdaan mushrikiin maynaan ahayn. saa aynay yidhaahdaan. alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala undur kayfa kadabuu calaa anfusihim, siday naftoodii ugu been sheegeen. fiiri adduunka markay joogeen waxay yidhahdeen waxaan shirki maaha, shuruucdan oo la qaato, hawada oo la raaco, waxaasu maaragtay waxaa weeye yani shurako ma aha. saasay yidhaahdeen waa khayr weeye, waa horumar weeye, saasay maaragtay uga qaadanayeen. ama ma ahee waxaa weeye yani siday naftoodii ugu beeniyeen, naftoodii waa u soo shariig yeeshay alla subxaanahu watacaala, shirki bay ku dhacday. mararka qaarkood way qirayaan oo mawaaqifta qaarkood way qirayaan, markaasay ku beeninayeen leeyihiin waxba kama jiraan waxaa nufuustu ay sheegayse maa kunaa mushrikiin, mushrikiin maynaan ahayn. yani waxaa weeye saasay naftoodii marna waa u been sheegeen, marna hadday ku beeninayaan. yaa labada macnoba maaragtay waxaa weeye waa laba macnoo waarida. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay war kuwaan eega sidii naftoodii maaragtay waxaa weeye ugu been sheegeen ama ay hadday u beeninayaan. yani waxaa weeye mowqifkaas baa dambeeya oo laysaga daba imaanayo, waxaasaa idinka horeeya. nufuustiinana yani waxaa weeye berri xaaladeedu saas ayay noqoneen. waa dadka alla subxaanahu watacaala ku been abuurtay. qofkii caabuda alla waxaan ahayn, ama xisi ha noqdeen waxyaalo muuqda, ama ha noqdeen waxyaalo macnawi ah ha noqdeen, qofkaasu alla u shariig yeelay. shirkina meesha nasiirka ugu dambeeyo oo yani dadka mushrikiinta ah ay la kulmayaan, saas ayuu noqonayaa. mowqifkaas ayaa maaragtay waxaa weeye hortaagan oo ay la kulmayaan. maasha allah, jazaaka allahu khayr. waxaan intaa ku dari lahaa walaalkii uu soo sheegay ama walaalihii soo sheegeen horta ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay subxaanahu watacaala. waxa hadda aan ka sheekeynayna macnaha waa aakhiro wey. annagoo adduunka joogno oo weliba fursaddii macnaha haysana ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa umuuro macnaa qeybi oo mataqaanaa waxaa weeye weli aanan dhicin. marka taasi waxay ka mid tahay naxariista ilaahay iyo galladiisa calaa cibaadihi, si aysan berri u dhin mataqaanaa maartay ilaahay maxaad waxaa noogu sheegi weyday si aan macdoga tawaabushaysano. marka runtii macnaha ilaahay subxaanahu watacaala uluuhiyadiisa waxay ka muuqanaysaa maalintaasi dadka macnaha la abaalmarinayo. aayadihii macnaha walaalkii cabdiraxmaan uu soo sheegay aayado macnaha u dhow oo shabi ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegaya fii suurati yuunus. acuudu billahi min ashaytaani arajiim. wayowma naxshuruhum jamiican ثuma naquulu liladiina ashrakuu makaanakum antum washurakaa'ukum fazayalnaa baynahum waqaala shurakaa'uhum maa kuntum iyaana tacbuduun fakafaa biاllahi shahiida baynana wabaynakum in kunaa can cibaadatikum lagaafiliin hunaalika tabluu kulu nafsi ma aslafat waruduu ilى اllahi mowlaahum اlxaq wadala canhum ma kaanuu yaftaruun. ilaahay maalintaas oo maxsharka macnaha maarata macnaha la imaanayo ayuu ilahay haddan looga sheekeynaya. waana wax macnaha qeyb oon ognahay mataqaanaa weli inaysan dhicin, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala muxuu arrintaa noogu sheegaya haddii aanan ka tawaabushaysanno. qofkii caaqil ah oo wax garanaya runtii haddii la yihahdo macnaha imtixaan baad macnaha gelaysaa, yani 2 bil kadib ama 1 sano kadib, hadda u diyaar garow. qofka caaqilka macnaha hubadiisu qaadanaya, laakiin qofkii aan macnaha caqli lahayn waxaan shaki ku jirin imtixaanka waa ku imaanaya isagoon macnaha diyaar garoobin. marka taasi macnaha waa fadli wa raxma wa mina macnaha min allahi calaa cibaadihi, inuu arrintaasi nooga faalloodo si toos ah oo macnaha aan macnaha gabasho lahayn
inuu ilaahay subxaana watacaala uu noo faafeeyo. ilahay wuxuu leeyay wayowma naxshuruhum jamiican, yani markaan macnaha kulmino dadkii oo dhan, ama macnaha waxay caabudayeen ama kuwii macnaha maarata waxaa weeye la caabudayay ayaa ilahay uu kulminaya. uma naqulu ladiina ashrakuu makaanakum antum wa shurakaakum. ilahay marka wuxuu leeyahay qoladii macnaha wax u sharig yeesheen ilahay wax la wadaajisay, idinka iyo macnaha shurakadiinaba meeshiina ahaada. macnihi waxaa weye waa amar ilaahayo wuxuu rabaa ilahay inuu macnaha maaragtay dadka macnaha u sheego waxa la caabudayay ilaahay sukadiisa inaysan cibaadada mudnayn. markaasuu yidhi waan kala soocaynaa oo waan kala saaraynaa mushrakadii iyo kuwii macnaha maarata waxa ilahay u sharig yeelay. fazayalnaa baynahum waqaala shurakaa'uhum maa kuntum iyaana tacbuduun. ilaahay subxaana watacaala xiwaar buu macnaha maarata noo sheegaya nimankii la caabuday oo macnaha waxaa weeye shurakada ah ee sharciga macnaha dejinayay ee dadka macnaha ku hogaaminaya mataqaana waxaan xaq ahayn, maalintaas waxay ka beri noqonayaan dadkii macnaha maarata waxaa weye caabidiinta ah ee caabuday. ilaahay subxaana watacaala saasuu noo sheegay. xataa shurakadii macnaha waxay ilaahay markhaati gelinayaan oo ilahay mataqaana ilaah cibaadadooda beri baan ka ahayn kama aana warqabin. marka iyagii baa isberi yeelaya mataqaana oo maxay iska beri yeelayaan cibaadadii mataqaana macnaha maarata la caabuday. shaydaan baana ugu horey sida ilahay noo sheegayo wuxuu leeyahy mataqaana maarata aniga macnaha maaragtay waan idin yeeray fastajabtum falaa taluumuuni walum anfusakum. macnaha ra'sul macnaha kufri waxaa weye ama ra'su taaguud waa shaytaan. shaytaan iyo wixii la halmaalane oo macnaha dawaaqiidii kaleenta oo sharciga dejinaysay ama macnaha loo rumaysana inay macnaha awliye yihiinoo dadka mataqaana maarata waxaa wax u tari karaan, waxaasoo dhan baa macnaha meeshaa ka baxaya. markaas kadib ilaahay subxaana watacaala wuxuu macnaha noo sheegayaa allaha subxaana watacaala xaqa ah in macnaha loo noqonayo. wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun. wixii ilaahay ku been abuuranayeenna way macnaha mataqaanaa ka dhumeen oo shurakadii ah. shurakadii mataqaanaa ayaa maarata ilaahay subxana watacala wuxuu leeyahy yani maanta markii qofka uu macnaha dhibaato ay hayso wuxuu raadiyaa qof macnaha u gargaara. marka ilahay wuxuu leeyahy wadalla canhum maa waxay ilaahay ku been abuurteen oo macnaha waxaa weeye aalihadii ay sheeganayeen kuwa macnaha waa ka dhumeen, way kama dhumin xataa way ka beri noqonayaan. marka masiirkaas been abuuradka watiyada cabdiraxmaan sheegay mogtahay allah shariig ma laha, khalqigiisa lalama wadaago, taladooda asa leh. marka way been abuurteenoo kuwa kaley samaysteen ilaahay wax la wadaagaan dhexen ama aan sukiiskooda. marka kuwaasi saas maanta ay leeyihiin waxaa imaan doonta inay maalintaas ka lumi doonaan ka leexan doonaan. macnaha ilaahay subxaana watacaala sidiisaba macnaha shariig ma laha fi dunya wa fi laakhira, laakiin wahmi ama waxaan macna xaqiiqayn bay isboosiiyeen. laakiin maalintaas ilaahay macnaha waa maalinta ugu baahi badnaayeno maalintaasi macnaha shurakadii macnaha ay ka dhumayaan. maxaa waa been abuur oo aan macnaha raad lahayn. marka ilaahay subxaana watacaala arrintaasu hadda noo sheegay annagu adduunka joognay soo ma habboona inaan ka tawaabushaysano allah xaqa keligiis inaan macnaha caabudno oo aan macnaha ka fogaano macnaha alaaliha allatii tucbadu min duuni illah oo macnaha aaliha aan baan mudnaynba maarata. cibaadana waa daaca iyo khuduuc. bismi illahi raxmaan raxiim. aayadahaas walaalahay ay soo xuseen runtii waxaan kusii raacin lahaa aayado kale oo ayaguna siyaaqaas ama habkaas u socda oo ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa iyo mulkigiisa iyo suldaankiisa adduunka asagaa maamula, waa xaqiiqo wey. laakiin dadka qaarkood in isdiisiyaan baa dhici karta. laakiin aakhiro markii la tago ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa cid inkiri karta iyo cid diidi karta ma jirto. dadkana adduunka inta la joogo waa la ishuwan yahay, waa la isku dhex jiraa. laakiin aakhiro markii la tago ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa dadka inay laba u kala baxayaan oo mid saddexaad aysan jirin. marka aayadaha noo tilmaamaya sidaa in loo kala baxaya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara xataa idaa jaa'uuha futixat abwaabuha waqaala lahum khazanatuha alam yaأtikum rusulu minkum yatluuna calaykum aayaati rabbikum wayundiruunakum liqaءa yowmikum hada qaaluu balaa walakin xaqat kalimaة اlcadaabi calى اlkaafiriin qiila اdkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiiha fabi'sa mahwa اlmutakabiriin wasiiqa aladiina اtaqow rabahum ilى اljannati zumara xataa idaa jaa'uuha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khazanatuha salaamu calaykum طibtum faadkhuluuha khaalidiin. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa in asagaa boqorka meesha ka ah. aayadahaas ka horreeyey maxsharkii baa la isugu yimid, ambiyadii baa la soo kulmiyey, suurkii baa la afuufay, xarakadaa sidaa u socotay. ilaahay nuurkiisa maahana maalintaa nuur kale ma jiro. wa ashraqat ilardu binuuri rabbiha, iftiin kale ma jiro. ilaahay subxaana watacaala cadligiisii iyo awooddiisii baa halkaa imaanaysa oo lagu kala baxayaa. ciddii markay adduunka joogtay marka
ilaahay ku gaalowday subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu noo sheegayaa wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama meel kale lagu geyn mayo waa lagu dareerinayaa adoo lagu hogaaminayo baa waxaa lagu geynayaa naartii markii halkaa la keeno futixat abwaabuhaa bari ayagoo taagan baa ilaahay subxaana wa tacala waxaa leeyahay naarta albaabadeeda loo furhaya maxaa yeele waa la dulaynayaa ma garatay sidii loo soo dareerinayay oo loo soo kaxaynayay baa halkaa la keenayaa markaasaa malaa'igtii waxay u furaysaa albaabadii naarta marka malaa'igtii marka su-aal bay weydiinaya waxay leeyihiin war ma waan rusushii ilaahay idin imaan oo aayaadkiisii intaa adduunka joogteen allaha naxariista badanoo walaalayaal ay ka soo sheekaynayeen ma waan laydinku dar akhrin aayadihii ilaahay maalintaa hadda inkiraad ma taallo ma garatay muranna ma yaallo waxaa weeye balaa maalintaa waa la hoggaansan yahay waa la isdhiibayaa cid madax adeegi karta iyo cid isqallafin karta iyo cid ilaahay amarkiisa ka hor imaan karta midna ma jirto qaaluu balaa walaakin xaqat kalimatu lkadaabi cala alkaafiriin ilaahay subxaana wa tacaala kelimadiisa baa nagu xaq noqotayoo haddee rabbi baan beeninay rabbi markaan beeninina haddii abaalkayaga waa halkan ilaahay subxaana wa tacala marka waxaa leeyahy qiila dkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiiha fabi'sa mathwa almutakabiriin halkaasaad ku waaraysaan xaqii baad diideen ilaahay taladiisaad diideen daacadii allaad diideen kibir baa halkaa idin geeyey shaydaan baa aabba idinku ahaa marka asagana sida ilahay naxariista alla idinku dheereeyey ayaa maanta idinkuna halkaasaa masiirkunu noqonaya dhinaca kale marka ilaahay subxaana wa tacaala dadkii alla ka cabsaday oo alla hu hoggaansamay oo ilaahay adeecay markay adduunka joogeenna oo rabbi awaamirtiisii qaatayna ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi wasiiqa aladiina itaqow rabbahum ila aljannati zumaran xataa idaa jaa'uuha wafutixat abwaabuha markii la soo kaxeeyo oo jannada la keeno malaa'igtii baa soo dhoweynaysa horey baa albaabada loogu soo furay waxaa la yidhi wafutixat abwaabuha meesha qoladii hore ayagoo taagan oo meesha lagu dulaynayo markaas albaabada la furayay ahlu jannaha waa loo soo diyaarshiyeyo gacmo furan baa lagu soo dubinaya waxaa la yidhi wafutixat abwaabuha wowgaasaa wuxuuna tusinayaa in loo soo diyaarshay oo lasoo dhoweynayo oo la istiqbaalayo marka ayagana malaa'igti maxay ku leeyihiin xataa idaa jaa'uuha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khasanatuha salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin dad wanaagsan baad ahaydeen adduunka markaad joogteen daartaana waa daarta dadka dayibiintaho wanaagsan oo ilaahay adeecay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay u hoggaansanaa meeshay degayeen weeye halkan dega salaan iyo sharaf iyo karaameyn baa lagu soo dhoweynaya marka ilaahay subxaana wa tacaala sida walaalahayba ay tilmaamayeen naxariistiis waxay keentay annagoo maanta joogna adduunkii in nala tusiyo sidii anta nala xambaaray oo nala qaaday nala geeyey aakhiro iyo ma garatay iyo daartii aakhiro oo wax walba maanta horteena ilaahay soo dhigay subxana wa tacaala waa fadli ilaahay waa naxariis ilaahay saasna ilaahay wuxuu u yeerayaa subxana wa tacaala berri inaan qofna marmarsiiye iyo cudadaar ilaahayo maadaa wax noo sheegay waxaan haddaan noo sheegi lahayd waa ka soo tabaabushaysan lahay haddaba maanta qofkii tabaabushaysanaya iyo qofkii caqligiisa ku fakerahayow maantaad fursad haysataa maanta ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyey adoo halkan jooga inaad xogtii oo dhan farta lagaa saaray ee haddaba ilaahay waxaan leenahay dad yahow ilaahay u hoggaansama ilaahay adeeca si aad labadaa meelood meel saddexaad ma jirto meel kaloo lagu waarayaana ma jirto waxaa weye awooddaasna cid ka hor imaan kartaa ma jirtee war qof walboo maanta ilaahay u hoggaansan oo ilaahay usi dhiib si aad labadaa meelood midkii ilaahay aad u camal fashay aad ugu waarto maarata halkaa ku nagaato jasaakum allahu khayran aad iyo aad baa umahadsantihiin walaal baa umahadsan yihiin waxaan leeyahay dad yahow sida nebiga uu noo yihi sal allahu alayh wasalam waad dhimanaysaan si aad u seexanaysaan waana laydin soo saari doonaa si aad usoo toostaanba latamuutunna kamaa tanaamuun walatubcahunna kamaa tastayqiduun kadibna waxaa imaan doonta xisaab iyo jazaa iyo abaalmarin baa imaan doonta wuxuu allah noo sheegay subxaanahu wa tacaala inuuna abuuray adduunyadaana uu abuuray xikmadna uu abuuray iyo ujeeddo iyo qaayo uu ka leeyahay ujeeddada ay xikmada iyo qaayada uu ka leeyahayna inaanay cayaar ahayn inaanay iska sii daysnayn balse ay leedahay xisaab iyo jawaab laga bixin doono wixii naloo abuuray ma arkaysaa waxay caawa walaalahana tusiyeen khayr allah siiyo qeyb ka mida aayadaha qur-aanka ee nagu baraarujinayo xisaabtaas weynee dambayso dadku in badan bay halmaansan yihiin in badan bay ka hordaan in badan bay isku madadaaliyaan wax hortooda yaallo oo keliya laakiin hortooda kama qarsoona inay dhimanayaan imisaa mood sagootina hortooda kama qarsoona in noloshaan saan u taalleysaan ilaahay u rakibay inaysan xikmadda ka mid ahayn saan la inay ku dhammaan doonto bal abaalmarin ay jirto jazaa inuu jiro ilaahayna waaba noo sheegay subxaana wa tacaala
ilaahay adduunyadan iskale awooddiisa ku socotaybaa ay maalintaana muuqan doontaa si waafiya u muuqan doontaa ilaahnimadiisa dhabta ah oo maanta waxa maanta dadka indhasracadinaya ee mugdiga ka gelayo maalintaas ma jiraan ficlan maarta maalintaas ma jiraan dadka maanta adduunyada waxay ku sarkhaansan yihiin oo ay wax ku weysan yihiin maalintaas ma jiraan oo si cayaana ayaa xaqiiqada loo waajahayaa saasaana qur-aanku noo sheegayahay isagoo intay goortahay inaan isqabanno oo ilahay u toobadkeenno ma aha oo ilaahay subxaanahu watacaala aan xargiisa qabsanno ma aha sow ma aha inaan shirkiga iyo waxyaalaha aan waxba noo tarayn aan farqaha ku wadano inaan iska reebno sow maaha oo arkaysaan ayadihiina loo sheegay maalintaas banaanka la isu caddaysan doonaa ku kasta waa isku halaynaysay meel ciduu kaaga tegi doonaa yaa kuwa maciina allah waxdahu subxaanahu caza wajal marka maanta ilahay aan qabsanno waana aad iyo aad runtii digniya aad u fiican bay tahay waxaan ilahay ka rajaynaa in ilahay nagu anfa insha allahu tacaala ila halkaas caawaan ku ekaysanno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.